waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan maraynay ardayay chapter 5 oo ka bilaabmaya complex number uu yahay chapterkani form 4 waxaan soo dhiganay afar chapter hore afarta hore waxay ahaayeen calculus iyo probability statistics iyo trigonometry ayaan ardayda hore soo dhiganay maanta waxaan ku noqonnaa casharkii bartu marayay waxaan ku dhex jirnay casharkii loo yaqaanay ama chapterkii loo yaqaanay complex-ka oo inoo ah chapter 5 marka loo eego syllabuska Somaliland ama manhajka Somaliland loo dajiyay ardayda secondaryada form 4-da casharkan hore soo dhiganay waa casharkii u dambeeyay marna wuxuu ahaa solving quadratic equations casharkii u dambeeyay aynu dhiganaa wuxuu ahaa solving quadratic equations tusaale ahaan waxaan soo qaadanay formkii ahaa ax squared plus bx plus c is equal to maxay 0 formka noocaas marka isleegtu u qoran tahay ayaa waxa loo yaqaanaa quadratic equation isleegsaable baa loo yaqaanaa waxaanu nidhi eedu iyo ka leekaanin is not equal to 0 qiimaha eeda ee quadratica horgalaha waa isleegta saabley ee ah quadratic theorem isleegta waxa loo yaqaanaa quadratic theorem baa isleegta qaybta hore tibixda u horeysa power 2 ah waxa loo yaqaanaa quadratic theorem oo af Soomaali noqonaysa tibix saabley powerka ugu weynina uu yahay 2 tibixda power 1 ka ah waxa loo yaqaanaa linear theorem baa loo yaqaanaa oo af Soomaali noqonaysa tibix toosan qiimaha siida waxa loo yaqaanaa constant theorem baa loo yaqaanaa waa inaga hore ka soo hadalnay qiimaha quadratic theoremka coefficient-kiisa oo horgalaha ah yuu ka leekaan baan maxay 0 is not equal to 0 kadina formkan bay qornaayeen ax squared plus x plus 1 is equal to 0 su'aali u dambeeyay dhigan jirnay ama example u dambeeyay soo qaadanay wuxuu ahaa solving quadratic equations ay ahaayeen iyadoo la adeegsanayo isleegsaable waxaan soo qaadanay ax squared plus x plus 1 is equal to 0 waxaan soo qaadanay qiimaha eedo inuu taagan yahay 1 oo ah horgalaha tibixda too isaable qiimaha biduna uu yahay horgalaha tibixda toosan oo noqonaysa 1 waxaan kala soo qaadanay qiimaha c-du waa constant numberka oo noqonaya c kadib waxaan soo qaadanay isleegsaable saddex hab la isticmaali jiray habka ugu muhiimsan ee soo qaadanay wuxuu ahaa habkii loo yaqaanay quadratic formula ay ku shaqeynay oo ahaa hab kamida habka la adeegsado quadratic equationska oo u taagnaa x waxa lagu helayaa x wato minus b plus or minus radical b squared minus 4ac square rooted whole divided by 2a halkaas marna arday ashuu dambiya wuxuu ahaa inaan ku shaqeyn karno solving quadratic equations by using quadratic formula qaacadaas isticmaal jirnay formkana way qornaa isleegideen hore oo waxay ahaayeen isleegsaable casharka waxay noo soo raacayo tii xasuutaan casharkii ahaa linear equations waa linear equations ayaa noo raacaya cashar ahaa isna combo laga saar oo isna formkan u qornaa x waa 3x minus 5y is equal to 15 minus 20i formkaas wuxuu u qornaa casharkii loo yaqaan linear equations kadib waxaa soo saarayay find the value of x and find the value of y waxa la 3x ayaa real number u dhigma oo noqonaya maxay 15 then value of x maxay noqonaysaa waxaan soo qaadanay dhinac kasta waxa loo qaybinayaa 3 dhinacana 3 baa loo qaybinayaa labadan 3 way iskoosanayaan x waxay noqonaysaa 5 the value of x is maxay 5 waxaan kala soo qaadanay y waa imaginary unit waxa ahayd -5yi ayaa waxay leegtahay -20i si aan u helo y-da both sides ka waxaan u qaybinayaa -5i divided by -5i labadan 5 way iskoosanayaan aydaana aydaa u jar wada y the value of y waxay soo baxaysaa 4
oo marka la isku qaybiyo -20 ee loo qaybiyo -5 waa 4 aydaasaan u jarayaa then waxaan oran jirnay the solution set urka furista wuxuu soo baxayaa qiimaha egasta ayaa horeynaysa waxay noqonaysaa 5.4 then the value of x and y this solution bay noqonaysaa cashirkeena hore wuxuu ahaa inuu ardaygu soo furfuri karo solving quadratic equations by using quadratic formula iyo inuu isticmaali karo linear equations combo laga ku jira inuu soo saari karo qiimaha egasta iyo qiimaha y-da halkaasina ardayga marnay uu ahaa cashirkeena u horeeyay ay soo qaadanay example-adii ugu dambeeyay wiigii fasaxaynu galaynay waxaanu qaadanaa haddaba cashirkan maanta dhiganayno oo noqonaya combo laga qayb ka mid ah oo loo yaqaan rectangular form iyo polar form marka labada hab la dhiganayana waa laba hab oo la isku bedelo oo ah convertible habkan u qaadana u horeeyo waxa loo yaqaanaa imka cashirka maanta dhiganayno waxa loo yaqaanaa rectangular form haddii buugaagta akhridaan ama inta badan isticmaashaan waxyaabaha lagu dhigto waxbarashada sida internetka oo kale buugaagta qaar waxay qoraan standard form bay qaar qoraan marka ereyga standard form iyo rectangular form waa laba erey isku mid ah waxaan la oranayaa sad waxay u dhigantaa sad is equal to a plus bi marka eedu waxay u taagan tahay real number eedu waa real number baa la oranayaa is a real number biduna waxay noqonaysaa coefficient laakiin waxay u taagan tahay maxay imaginary unit baa la oranayaa waa imaginary units marka la isticmaaliyo imaginary unitka iyo real numberka waxaan ku muujinaynaa Cartesian brainka marka la sawirayo waxaan hore soo qaadanay dhidibka jiifa waa x waa horsanta leenka dhidibka taagana wuxuu noqonayaa y waxaan hore soo qaadanay kaas waa first quadrant af Soomaali waxay noqonaysaa waaxda koobaad waxaan kala soo qaadanay inay tan u taagan tahay second quadrant oo noqonaysa af Soomaali maxay waaxda labaad waxaan kala soo qaadanay inay tan noqonaysa third quadrant oo af Soomaali noqonaysa maxay waaxda saddexaad waxaan kala soo qaadanay markaan trigonometry maraynay waaxyaha tan waxay noqonaysaa fourth quadrant oo af Soomaali maxay noqonaysaa waaxda afraad afarta waaxood markuu ardaygu si fiican u yaqaano Cartesian brainka marka lagu muujinayo waa waaxda koobaad iyo waaxda labaad iyo waaxda saddexaad iyo waaxda afraad egasto halkaas waa centerkii oo waa zero axis halkaas waxay noqonaysaa +1 iyo +2 iyo +3 iyo +4 saasa loo soconaya xagana waxay noqonaysaa -1 iyo -2 iyo -3 iyo -4 and so on qaybtaasna waxay noqonaysaa qaybta negative-ka ah qaybtaas sare wayda waxa loo yaqaan maxay qaybta positive-ka ah waa +2 iyo +3 +1 iyo +2 iyo +3 saas u soconaya xagana waxay nagu xiga dhidibka egas in wayda qiimaha negative-ka ah waa -1 iyo -2 iyo -3 iyo -4 ardaydu markay sidaa u fahmaan afarta waaxood halka labada iska jari doona kaasi wuxuu taagan yahay y kaasina wuxuu taagan tusaale ahaan maxay wuxuu taagan yahay dhidibka egasta oo noqonaysa +3 marka jawaabtu waxay noqonaysaa 3 oo egasa iyo +2 oo y noqonaysa marka waaxda koowaad waxa dhaca laba number oo positive ah oo midna egas u taagan yahay ka hore ka dibna u taagan yahay y waaxdan labaad saan bay noqonaysaa tusaale ahaan haddaynu qaabkan u sawirno waxay is jarayaan number egasa oo negative ah iyo number y oo positive ah halkaas waa -2 iyo +3 marka waaxda labaad waxa dhaca qiimaha egas waa negative qiimaha y-duna waa positive waxay noqonaysaa tirada hore minus todobana waxay noqonaysaa plus waana waaxda labaad la taagan yahay waaxda saddexaad marka la yimaado waxay noqonaysaa laba qiime oo labaduba ay yihiin negative egas waxay tahay tusaale ahaan -3 baan qaadanay y-dana waxaan qaadanay -4 waaxda saddexaadna waxa dhacaya laba number oo labaduba ay yihiin negative numbers ama abiyoone 10 oo aan negative numbers waaxda afraad waa fourth quadrant waxaynu qaadan karnaa laba number oo is jaraya haddii soo qaadana qiimaha egasta number 2 oo positive ah kana wuxuu noqonayaa number maxay -3 marka waaxda afraadna waxa dhacaya number plus ah oo egas u taagan iyo number egas in y oo -3
marka waaxda afraad waxa dhacaya laba number oo egasto ay tahay plus y-duna ay tahay minus marka waaxda afraad waxa dhacay negative positive side ka horeynaya oo numberka ah egasta ka yimid iyo negative-ka oo ka yimid ka y-da ah marka waaxda afraad waxa dhacay laba number oo ka horna positive yahay ka dambana uu negative yahay marka casharku maanta dhiganna ah rectangular formka iyo polar formka afarta waaxood bina la gali doona ardayay afarta waaxoodna hadaynu ku noqono ardaygu inuu fahmaa waaxda koobaad labada number dhacaya ka hor egas buu taagan yahay oo plus ka dambana y buu taagan yahay oo waa plus marka waxaan isla qaadanay waaxda koobaad in laba number oo plus ay dhacaan waaxda labaadna waxaan isla qaadanay inuu numberka hore uu egas u taagan yahay uu negative yahay ka dambana uu taagan yahay y oo positive yahay marka second quadrant waaxda labaad waxa dhacaya number minus oo u taagan egasta iyo number positive oo u taagan y-da third quadrant waynu maraynaa arday waaxda saddexaad baynu maraynaa waaxda saddexaad waxa is jari doona number minus oo egasa iyo number minus oo y marka waaxda saddexaad waxa dhacaya laba number oo labadu ay yihiin negative ay noqonaysaa waaxdan afraad marka la yimaadana waxay noqonaysaa number egasa oo positive iyo number y oo negative waaxda afraadna waxa dhici doona number plus iyo number minus marka la muujinayo imaginary unit-kana qaabkan buu sawiray hadii buugaagta akhridaan ama meelaha waxbarashada laga dhigay baraha bulshada halka waxaan u qaadan tusaale ahaan halka waxaan u qaadanayaa a halkaana waxaan u qaadanayaa b kadib laba number baan eegayaa barta iska jaraan point iska jaraan baan sawiraynaa hadii barta iska jaraan this point ka hore wuxuu taagan yahay egas oo waa a kan dambana wuxuu taagan yahay b oo y dhidibka y-da ah halkaaynu muujinay qiimaha b wuxuu taagan yahay imaginary unit-ka kaas wuxuu noqonayaa imaginary unit buu noqonayaa ama imaginary axis waa dhidibka imaginary loo qaadanayo eedana waxay u taagan tahay real axis bay noqonaysaa oo dhidibka egasta ah ay noqonaysaa haddaba marka labadan la isku xidhayo qaab noocan ay isugu xidhaynaa this line labada line baa jaray labada line markay jareen halka waxaan u qaadanayaa angle theta oo xagashiya dhinacaas wuxuu noqonayaa maxay b dhinacaasna wuxuu noqonayaa maxay a markay soo dhigan jirnay trigonometry-ga ardayay xagashaynu calaamadsanay dhinaca ka soo horjeeda wuxuu noqon jiray opposite-ka dhinaca la deriskana wuxuu noqon jiray adjacent side-kii waxaynu soo qaadanay in dhinacaas uu yahay r oo u taagan hypotenuse-kii r-tu waxay u taagan tahay hypotenuse side hypotenuse buu taagan tahay art b-duna waxay u taagan tahay opposite side a-duna waxay u taagan tahay adjacent side waxaan soo qaadanay Pythagoras theorem si waxa lagu helaa squared dhinaca ugu dheer oo laba jibaaray wuxuu inoo leeyahay labada dhinac gaagaaban oo la laba jibaaray oo la isu geeyay halkii maanta inoo taalo r ayay si u qaadan jirnay marka r10 waxay noqonaysaa r squared waa position of c ayaan ku bedelanayaa waxay u dhigantaa a la laba jibaaray oo loo geeyay b la laba jibaaray si aan u helo r ta hadaba si aan r ta soo saaro both sides-ka waxaan sameynayaa square rooted dhinacan waxaan ka sameynayaa square rooted waxa iskoosan doona calaamadda radicalka iyo power-ka iskoosan doona r waxay noqon doontaa marka waxa lagu helaa a squared plus b squared square rooted marka r waxay u taagan tahay hypotenuse side-kii oo noqonaysa modulus-ka sada waxaan lagu helaa a squared plus b squared square rooted marka cashir maanta qaadana wuxuu ku xirmi doonaa oo ah rectangular formka iyo polar formka wuxuu ku xirmi doonaa fourth quadrant-iskan afartan waaxood iyo ardayga inuu fahmo r inuu taagan tahay dhinacii hypotenuse-ka b-duna u taagan tahay opposite-ka a-duna u taagan tahay adjacent-ka marka r waxaa la oranayaa maxaa lagu helaa a squared plus b squared oo xididka laga saaray keen haddaba waxaynu soo noqonnaa ardayay waxaynu qaadanaa cashirka loo yaqaan rectangular formka iyo polar formka labadan casharba waxaa la sameynayaa waa convertible waa laba cashar la isku bedelo oo mar waxaa lagu siinayaa polar formka waxaa lagu celinayaa rectangular formka marna waxaa lagu siinayaa rectangular formka waxaa lagu celinayaa polar formka labadan casharba waa la isku bedelaa waxaynu isla soo qaadanay in eeda lagu helo oo u taagan adjacent side-ka waxaa lagu helaa qiimaha r-ta oo lagu dhiftay cos theta lagu dhiftay maxay cos theta eriga or baan isticmaalaynaa halkan ka isticmaalnay in eeda halkan ka isticmaalnay eeda waxay u dhigantaa halkan ka isticmaalna maxay egasta
marka waxa isku dhigma arday egasta iyo maxaa isku dhigma waxa isku dhigma egasta iyo arta oo hadii ha soo saar qiimaha r in qiimaha eeda waxa leedahay eeda waxa lagu helaa qiimaha arta oo lagu dhuftay qiimaha cos theta egasta waxa lagu heli karaa sidoo kale ee la mid ah waxa lagu heli karaa qiimaha arta oo lagu dhuftay cos theta oo halkeen u qaadanay imaka aynu qaadanay eeda ayaa egas loo qaadanaya halka aynu qaadanay b-dana waxa loo qaadan karaa y oo dhidibka vertical-ka ah ee taagani markastana wuxuu noo taagan yahay y-da dhidibka jiifa horsanta line-ka ana wuxuu u taagan yahay qiimaha in egasta marka egasta iyo eedu waa isku mid hadii tan la isticmaalo iyo hadii taa la isticmaalaba labada qaacidaba just the same way b-dana waxa lagu helaa value of b oo u taagan imaginary unit-ka ama dhidibka y-da waxa lagu helaa qiimaha arta oo lurtay sin theta waxa la oran karaa ereyga or halkan b ka isticmaalay ayaa waxaan ka isticmaali karaa qiimaha y-da waxa lagu helaa arta oo lagu dhuftay sin theta marka waxa isu keen mid noqday qiimaha y-du u dhiganto iyo qiimaha b-du u dhiganto labada mid un baad isticmaali kartaa ama b baad adeegsan kartaa ama y baad adeegsan kartaa haddeen a iyo b isticmaalno labada baan isticmaalnaa haddeen egas iyo y isticmaalna labada formulo ayaan ku shaqaynaynaa waxaan kala soo qaadanay coska maxaa lagu helaa cos theta markii hore dhiganay trigonometry-ga waxaan soo qaadanay cos theta waxa lagu helaa adjacent side-ka oo loo qaybiyay hypotenuse-ka ayaan soo qaadanay a divided by h baan soo qaadanay eedu waxay u taagnay adjacent side-ka h-na waxa u taagneyd hypotenuse-ka ayay u taagneyd marka maanta waxaan qaadanaa cos theta waxa lagu helaa egas divided by r oo maanta egas inaga maxay noogu taagan tahay adjacent side in r-tuna maxay u taagan tahay hypotenuse-ki r-tu maxay u taagan tahay hypotenuse-ki bay u taagan tahay marka bartan ka isticmaalna in egas divided by r waxay la macno tahay halan ka isticmaalno egas divided by r taa iyo waxa isku mid ah adjacent-ka loo qaybiyay hypotenuse-ka oo inaga maanta halkii adjacent-ka egas baan u qaadan karnaa halkii hypotenuse-kana waxaan u qaadan karnaa r oo modulus of z noqonaysa marka labada qaacido isku mid bay noqonayaan marka waxaan leenahay cos theta waxa lagu helaa egas loo qaybiyay r egas loo qaybiyay r oo noqonaysa adjacent-ka oo loo qaybiyay hypotenuse-ka ereyga or waxaan u isticmaalnay mar kale san moo la adeegsan karaa oo halkii egasta waxa u dhigmayay a marka egasta la bedelayaa position of egas ayaa waxaan ku bedelanayaa maxay value of a divided by r marka sidani waa isku mid waxa kale la siimida oo buwaata qaar isticmaali karaan cos theta waxa lagu helaa qiimaha a oo loo qaybiyay a squared plus b squared square rooted intan waxa u dhigmaysaa arday r waxa lagu heli jiray a squared plus b squared square rooted qiimaha arta ayaa inta u dhiganta marka bartii artan ka isticmaalayna markii hore ayaa waxa la isticmaali karaa formuladii arta lagu helayay ayaa la adeegsan karaa inta haddaan ku celiyo labadan qiime ee marna aad isticmaalnay marna egasta waa isku mid bay nidhi oo marna a iyo b baa isku xidhmaya oo dhinaca opposite-ka waxaan u qaadanay b dhinacan adjacent-ka waxaan u qaatay a marna waxa isku xidhmaya egas baan dhinacan u qaadanaya jiifa dhinaca taagana vertical-ka ah waxaan u qaadanayaa y halkan u qaatay artana waa dhinacii hypotenuse-ka noqonaysay marka dhigan jirnay trigonometry-ga casharka kan ka horeeyay ama chapter kan ka sii horeeyay noqonayay waxaan yaa coska waxa lagu helaa egas divided by r oo u dhigma cos waxa lagu heli karaa a divided by r oo u sii dhigma cos waxa lagu heli karaa a divided by a squared plus b squared square rooted haddaba r maxaa lagu helaa a squared plus b squared square rooted waa qaacidii Pythagoras-ka isticmaal jirnay ahayd si waxa lagu helaa baan oran jirnay si waxa lagu helaa baan oran jirnay a squared plus b squared square rooted qaacidada hore Pythagoras si yar marka dhiganay trigonometry base-ka ahaa iyo qaacidada r waa isku mid waa ti modulus-ka marka isticmaalayna haddaba r maxay u taagan tahay where's r waxay noqonaysaa modulus of z waxa loo jeedaa waa hypotenuse-ka dhinaca ugu dheer saddex aqalka aynu sawirnay t2na wuxuu noqonayaa argument of z oo xagasha aynu qaadanaya waxaynu qaadanaa haddaba example 1 arday example 1 waxaynu qaadanaa waxa weeyaan find the longest of r of complex number equation is equal to z is equal to -2 plus 5i markaynu su'aashan ka shaqeynaa arday waxaynu qoranaa solution-keenu wuxuu ka bilaabmayaa equation haysano maxaa leena siiyey waxaan haysanaa z is equal to 1 - 2 plus 5i ardaygu marka saa u qorto waa inuu gifankii qoraa isleegtii ahayd rectangle formka
rectangular formka qaabkan bay u qoran tahay qaacidada haysanaa waxay ahayd sad waxa lagu helaa s plus bi waxaan soo qaadanay inay aad u taagan tahay qiimaha a waxay u taagan tahay qiimaha a waxay noqonaysaa formka qaabkay u qoran tahay corresponding muxuu noqonayaa waa -2i -2 bay noqonaysaa aadi b-dina waxay noqonaysaa complex numberka horgelis waa imisa ee barta b-da inoo yaala waa 5 maxaa lana weydiiyey arday waxa la weydiiyey value of r ayaa lana weydiiyey r ta haddaba maxay noqonaysaa qaacidadeedu r waxaa lagu helaa a squared plus b squared square rooted oo xididka laga saaray waa qiimaha r ta lagu helayo marka waxaan leeyahay r waxay soo baxaysaa -2 la laba jibaaray oo loo geeyey qiimaha b oo 5 oo laba jibaaran oo xididka laga saaray marka waxaan leeyahay r10 waxay soo baxaysaa r is equal to r is equal to -2 haddii la laba jibaaro waa +4 5 haddii la laba jibaarana waa 25 labada number positive addition maxaa samee oo isu gee waxa soo baxaya r is equal to waa 29 square rooted waxaan soo dhiganay marka saadiska maraynay xisaabta hadda xididka laga saari karo way ka baxaysaa haddayna ka baxayna waxa loo kala jebinayaa laba number oo midna xididku ka baxo midna uu kuna ka baxayn imika tan waxa weeyaan waa baray number waxa laga tagayaa in sad form waxaan kaga tagnaa qaabka ay u qoran tahay oo loo yaqaano sad form marka qiimaha r wuxuu noqonayaa 29 square rooted ayay r10 u dhigmaysaa waxaan ku noqonnaa example labaad ee sana arday waxay noqonaysaa convert waxaad u bedelaysaa in a polar form qaabka u qorantay hore waxa loo yaqaanaa rectangular form laakiin waxaanu ka dhigaynaa qaacidada polar form ka dhigaynaa waxay convert waa example 2 arday waxaanu marnaa example 2 waxay convert this equation selecting waxa loo bedelayaa into polar form baa loo bedelaya waanaga hore soo dhiganay in labadan cashar kan rectangular formka iyo kan polar formkaba labadaba in la isku bedeli karo oo labaduba ay noo noqonayaan convertible marka tan hore ka shaqeynayay waxay u qornay rectangular form waxaan soo saarnay qiimaha r-ta oo inta inoo soo baxday imika laakiin waxa la naga rabaa convert waxa weeyaan u bedel this equation is selected in the polar form maxaa loo bedelayaa polar form marka u horeysa selected qorana solution-keena solution-keeda waxaan haystaa waxaan leeyahay sad is equal to solution-keena waxaan haystaa sad is equal to waan oranaya waxaan leeyahay 2 plus 2i arday kasta oo galaaska fadhiya waa inuu samayn karaa gifanka equation-keeni imika formkan wuxuu noqonayaa this formkan ay u qoran tahay waa rectangular form waxay noqonaysaa rectangular form bay u qoran tahay marka rectangular form markay u qoran tahay ama habkii loo yaqaanay standard form waxaan rectangular form labaduba waa isku mid oo waxa isku mid ereyga rectangular form iyo standard form qaabkan baa loo yaqaanaa oo markay soo qaadanay sad is equal to waxaan soo qaadanay sad is equal to a plus bi qaabka markay u qorneen ayaa waxa loo yaqaanaa standard form ama rectangular form bay niri haddaba imika selected haysanaa waxay u qoran tahay ardayay qaabka loo yaqaano rectangular form bay u qoran tahay rectangular formkana waxa loo bedelayaa oo leenaga rabaa habka loo yaqaano polar form baa laga rabaa imika waa inuu hore soo dhiganay in polar formka laga dhigi karo rectangular form iyana rectangular formka laga dhigi karo polar form imika markuu ardaygu saa u arkay selected bad ku eegaysaa qaabkan formka ay u qoran tahay sadheenaasay noqonaysaa halka eedu inoo taalo imika maxaa inoo yaala waxaa inoo yaala 2 marka waxaa la value of a waxay soo baxaysaa 2 gifankeena value of a maxay inoo soo baxday 2 barta imika inoo taala bi oo complex-kii waxay inoo yaala maxay 2 aydu waxayaan ayda formka u qorantay complex-ka laakiin barta b-da maxay inoo yaala waxay inoo yaala 2 marka ardaygu intaa u qorto marka u horeysa saddexdii xaraf isku xidhmayay waxay ahayd r waxa lagu helaa a squared plus b squared square rooted r baan soo saaraya r ta marka la soo baxay waxay noqonaysaa r waxa lagu helaa baad leedahay r maxaa lagu heli jiray arday r waxa lagu helaa a squared plus b squared square rooted qaacidada r ta isticmaalayna waa qaacidada
waxaan haysanaa qiimihii eeda 2 qiimihii bidana waxaan haystaa maxay 2 ku bedela hadaba waxaan leeyahay r waxay soo baxaysaa 2 squared plus 2 squared square root labadaba square garee waxay noqonaysaa 4 iyo plus 4 square root labada number waxa weeyaan positive numbers waan isu geynaa arday waxay noqonaysaa 8 square root 8 ku xididka toos uga bixi maayo laakiin waxaan u kala jabinaynaa number uu ka baxa radicalku iyo number uu ku jiro radicalku waxay noqonaysaa 4 times 2 square root keebuu ka baxaya radicalku 2 in 4 ka ayuu ka baxaya waxay noqonaysaa r teenu 2 oo radicalki 4 ka baxaya square root of maxay 2 intaas arday noqon the value of a marka ardaygu la soo baxo qiimaha eeda waxaan jeedaa qiimaha r marka ardaygu la soo baxo waxa la yiraahdaa polar form ka dhig qaacidada polar form ka markaynu soo dhiganay waxayna polar form ka sadha waxa lagu helaa r cos cos theta iyo plus sin I sin theta waxa la soo baxaya marka hore coska ardayga coska maxaa lagu helaa hore soo dhiganay cos theta waxa lagu helaa qaacidada ay sheegayaan qaacidadan waxay ahayd cos theta waxa lagu helaa qiimaha egasta oo loo qaybiyay r ta ama waxaan soo qaadanay qiimaha eeda oo loo qaybiyay r ta ama waxaan soo qaadanay cos theta waxa lagu helaa a divided by a squared plus b squared square rooted saddexda form ba adeegsataa waa isku mid inagu taa dhaxaynu qaadanna maadaama aan haysano r iyo a oo way egas ma haysta maanta ma soo saarin oo hadan ka isticmaal lahaa egasta waxaan isticmaalay qiimaha eedaan isticmaalay r tina waan haysanaa eedina waan haysanaa waxaan isticmaalnaa qaacidada waxaan la cos theta waxa lagu helaa qiimaha eeda oo loo qaybiyay r ta cos theta maxaa lagu helaa banidi qiimaha eeda oo loo qaybiyay r ta marka arday kasto gaaska fadhiya wuxuu fahmayaa qiimaha eedu muxuu u taagnaa 2 buu u taagnaa qiimaha r tuna wanaga soo dhigana waxay ahayd ama la soo baxnay 2 radical 2 waheed way ku bedelanaa hadaba waxaad noqonaysaa cos theta waxay soo baxaysaa cos theta waxay soo baxaysaa value of a waa imisa waa 2 value of a waa 2 way soo baxaysaa divided by r tuna waa imisa waa 2 radical 2 haasa ku bedelanaya waa 2 divided 2 radical 2 way noqonaysaa labada markaan isku simplify gareeno waxaan la simplify maxaa iskoosanaya aqaa 2 baan u qaybinaya aqaana 2 baan u qaybinaya waxa inoo soo baxay cos theta ayaa inoo leeg 1 divided by radical 2 ardayda xasuusan markay mana special angaliska trigonometriga waxaan soo dhiganay 17 ama 16 special angalisa waxaan qaadanay coska oo ah cos theta oo u dhimaya 1 divided by radical 2 waa special angle waxay u dhigantaa inagoo dhinaca ku dhufana radical 2 dhinacana ku dhufana radical 2 labadaas sare haddaan isku dhufto conjugate-ka dhigan jirnay waa radical 2 divided by radical 4 ka hoos xidid ka baxay arday ka hoos marka xididka laga saaro waxay noo soo bixi doonaa intan waxay u dhigantaa radical 2 divided by 2 bay u dhigantaa oo sidan waa isku mid labadu waa form la qori karo ama kan la qaadan karo ama kan oo isku mid ah hadaba waa special angle waxaan soo qaadanay halka markaynu marayno ardaygu markuu intaa u haysto special angle bahe waxaan soo qaadanay cos 45 degree ayaa u dhigmayay radical 2 divided by 2 form keen hore slept markay u qorneed aqaas plus bahe aqaasna waxay ahayd plus qiimaha eedu waa plus oo waa egas qiimaha wayduna waxayaan plus oo waa 2 cartesian balanka markaan dhiganaynay dhinacaas dhidibkaas egas buu ahaa dhidibkaasina y buu ahaa number egas 2 baan haystaa number y-na 2 baan haystaa cartesian balankeeni waxa iska jariyaan pointiga loo yaqaano quadrant 1 waa first quadrant halka egas tahay 2 y-duna waa 2 waxay dhacday waaxda koobaad waxay dhacday waaxda koobaad marka waaxda koobaad bay dhacaysaa waaxda koobaadna dhamaantu waxay hayeen all of maxay positive ayaha sin-ku waa positive tan-kuna waa positive cos-kuna positive ahaa wanaga soo qaadanay all stc hadda waxaan oranaa xagashi waxaan haystaa radical 2 divided by 2 oo u dhigmisa inkan waxay u qorantay in degree form bay u qorantay intani marka loo bedelayo radian form keeni wanaga soo qaadanay marka radian formka loo bedelayo intan waxay u dhigmisa by loo qaybiyay 4 by loo qaybiyay 4 haddii bayda loo bedesho 180 oo 4 loo qaybiyo waa 45 marka waxa isu dhigmaya sidaa daraadeed
waxaa isu dhigmayaad oranaysaa 45 degree ayaa waxay u dhigantaa by loo qaybiyey 4 kana wuxuu u qoran yahay rad form ayuu qoran yahay kana wuxuu u qoran yahay degree form haddaba intaa markay soo qaadano waxaan ku beddelanayaa isleegteena ahayd polar formka maxaa lagu helaa waxaa leeyahay polar form waxaa lagu helaa sadi si waa inaad fahantaa qiimaha a baa bedelaya qiimaha r taa waa la bedelayaa tiitahana waan bedelaynaa coska saaran iyo tiitaha sinka saaran oo tiitahana maanta waa imisa waa by 4 rada r-tina waa imisa waa 2 radical 2 ku bedela haddaba waxaa leeyahay then the answer jawaabtu waxay noqonaysaa r-tina waa imisa waa 2 radical 2 haye qaws maxaan haystaa cos by 4 baan haystaa plus maxaan haystaa I sin by 4 ayaa kaasi noqonaysaa by 4 waa by loo qaybiyey 4 bay noqonaysaa markaa polar formkan wuxuu soo baxay 2 radical 2 cos by 4 plus sin by 4 this is a polar form this is an answer waana jawaabtii lanoo diray this is an answer waxaan kusoo gabagabeynaa inuu ardaygu fahmo qaabka rectangular formka polar form looga dhigo marka u horeysa waxaan qoraya gifanka qiimaha a baan la soo baxayaa qiimaha b na waan la soo baxayaa r-taan raadinaya r-ta waxaa lagu helaa squared plus b squared square rooted kadib waxaan la soo baxay qiimihii r-ta oo inoo soo baxday radical 8 waxaan ku jiro laba number midna xidid ka baxo midna uu ku jiro deetana 4 iyo waxaan ku jibiyay 2 4 xidid ka baxaya oo 2 way noqotay aasna waxaan soo baxay radical 2 uu ku jiro radicalkii marka r-ta la soo baxo waxaan soo saarayaa cos theta maxaa lagu helaa in arday saddex qaacido soo qornay waxaynu qaadan a divided by r a waxay u taagan tahay 2 r waxay u taagan tahay 2 radical 2 labada 2 baan isku qaybiyey waxay noo soo baxay 1 divided by radical 2 oo species angala oo noqonta radical 2 divided by radical 2 si dhigmaysa kadib waxaan eeginaa isleegteena hore aqas positive waa qiimihii agasta aqasan positive waa qiimihii wayda cartesian balanka marka lagu muujiyo labadu waaxda koowaad bay dhacayaan labadu waa positive marka xaga jir waa acute angle waxay noqonaysaa angle u dhigma species angala oo 45 noqonaya oo dhigma radical 2 divided by 2 radical wuxuu noqonayaa hadii la bedelana waxaan soo bay loo qaybiyay 4 waxaan isticmaalnaa rad form isticmaalayna isleegta kusoo bedelna polar formkan waxay noqonaysaa hadda soo gabagabeeyno sadha waxaa lagu helayaa r into cos theta plus I sin theta bay noqonaysaa waxaan bedelayaa barta r-ta iyo barta theta inoo yaalo r-tan waxaan ku bedeshay 2 radical 2 baan ku bedeshay theta waxaan ku bedeshay by loo qaybiyay 4 halkan waxaan ku bedeshay by loo qaybiyay 4 this is a polar form kaasa wuxuu noqonayaa polar formkii la inoo diray jawaabta ahayd in convert into a polar form insha Allah haas ka soo qaad doona hadii la hayado cashiga inoogu xiga wabillahi tawfiiq